war degdega imaaraadka oo laga ceeriyay guud ahaan ee dalka Soomaaliya xilli dawladda hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay ku sheegeen inay tahay dawlad ku xadgudubtay madaxbanaanida dhuleed iyo midnimada ee Soomaaliya ayaa markaa u wacday dhanka iyo Somaliland iyadoo la sheegay in imaaraadka ballanqaad rasmi ah u sameysay ee Somaliland iyo madaxweyne Ciro kaasoo u sheegeen inay siin doonaan aqoonsigii rasmiga ah isla markaana baasaboorka Somaliland lagu tagi doono imaaraadka Carabta. shacabka Soomaaliyeed ayaa si aad uga cadhooday iyo dawladda federaalka Soomaaliya kadib markii ay ceersadeen imaaraadka Carabta iyadoo qalad aad u weyn ay ku sameeyeen sida dawladda Soomaaliya xustay ee gudaha dhulka ee Soomaaliyeed isla markaana u adeegsatay danaheeda iyo arrimaheeda gaarka ah. mar kale imaaraadka oo loo digay isla markaana loo jaray waraaqado iyo si lamid ah inay dalka ka baxdo ayay u waacatay dhanka iyo Somaliland iyadoo ay sheegtay Somaliland ay ka madax banaan tahay dhulka Soomaaliya isla markaana Somaliland ay u balan qaaday inay sii doonto aqoonsi iyo waxa kasta iyagu ay rabaan dhinaca kalena aysan ka bixi doonin ee dekada Berbera ilaa iyo shacabka Somaliland ay raali ka noqdaan. madaxweyne Ciro iyo shacabkiisaba ay hadleen ayay sheegeen inay ku qanacsan yihiin in imaaraadku ay sii joogaan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo xukuumaddiisa ayaa la sheegay in markii ugu horeysay ee taariikhda ay xilfaha ugu laabeen dal shisheeye oo saameyn xoog leh ku lahaa ee gudaha dalka iyadoo imaaraadka la sheegay in tani ay kala kulmeen fadeexad iyo dharbaaxad culus kadib markii dawladda Soomaaliyeed ay ka ceersadeen ee gudaha ee dalka Soomaaliya. arrintan ayay saameyn xoog leh ku yeelatay iyadoo markaa la sheegay in imaaraadka ay wadaan dhaqdhaqaaqyo culus isla markaana ay kala hadlayaan ee Puntland iyo Jubbaland una sheegayaan inay dib ula hadlaan madaxweynahooda Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud isla markaana ama bay xoog ay adeegsadaan sidii imaaraadku u sii joogi lahaa ee gudaha dalka isagoo aan ka bixinin. imaaraadka ayaa la sheegay in Somaliland ay u balan qaadeen aqoonsi rasmi ah oo markaana ay soo hooyanayaan isla markaana ay ka dhigayaan dawlad madax banaan oo ka madax banaan ee Soomaaliya. dhinaca kalena dawlado ay ugu horeyso xukuumadda Soomaaliya laftirkeedu ay sheegeen in madax banaanida dhuleed ee Soomaaliya lama taabtaan ay tahay. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo hadlay ayuu sheegay in tallaabo adag ay ka qaadi doonaan imaaraadka Carabta haddii ay dalka si rasmi ah isaga bixi waayaan isagoo xusay in Soomaaliya ay tahay dal madax banaan isla markaana aanu marnaba lagu xadgudbi karin dhinaca kalena kheyraadkeeda cidii iyadoo aysan raali ugu ahaynna aysan iska guran karin. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa qaaday tallaabo adag oo ay ka farxisay ee guud ahaan ee shacabka Soomaaliyeed. imaaraadka ayaa wada dhaqdhaqaaqyo culus isagoo la sheegay inuu dhinaca u sii jeesay ee Somaliland isla markaana la sheegay in dawlado shisheeye ay ugu horeyso Turkiga oo la hadlay isla una sheegay in loo baahan yahay inay kala hadasho xukuumadda Soomaaliya hogaamiye madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamza Cabdi Barre sidii mar kale imaaraadka gudaha dalka ay u sii joogi lahaayeen isla markaana howlahoodii gudaha ay ugu sii wadan lahaayeen. iminka arrimo kale oo culus ayay soo food saartay ee shirkadda DP World oo laga leeyahay imaaraadka Carabta iyadoo waraaqad waana loo jaray isla markaana loo sheegay inaysan ka sii howlgali karin ee gudaha dalka. cabsi xoogan ayay soo wajahday ee shaqaalaha imaaraadka kadib markii loo digay inay isaga baxaan ee dalka. dhinaca kalena dawladda Soomaaliya ayaa la saadaalinayaa inay qaadi doonto tallaabo culus oo ay isla markaana sharciga la tiigsan doonto imaaraadka Carabta markii ugu horeysay ee taariikhda. imaaraadka Carabta ma jirto dawlad si rasmi ah oo u diiday isla markaana ay kula xisaabtantay ficilkii iyo dhaqan xumadii oo ay ku eedeysay lagu eedeyn jiray inay ka sameysay gudaha dal kasto ay joogto.